madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi oo ku sugan magaalada Burco maalintii labaad ayaa xadhiga ka jaray mashaariic kor loogu qaadayo adeegyada arrimaha bulshada waxaanu madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland daahfuray garoonka kubadda cagta ee Alamse Stadium oo la dhigay rooga cagaaran ee casriga ah isbitaal loo bineeyay taliska qaybta Bilayska ee gobolka Togdheer iyo dhismayaal lagu soo kordhiyay hoteelka Kaafi ee magaalada Burco madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa safar sanadkii hore ku yimi magaalada Burco ku dhagax dhigay garoonkan maanta xariga ka jaray mas'uuliyiinta gobolka Togdheer iyo ka degmada Burco dhalinyarada gobolkan ayaa madaxweynaha ku qaabilay garoonka kubadda cagta ee Alamse Stadium isuduwaha dhalinyarada iyo ciyaaraha ee gobolka Togdheer Kayse Yuusuf Cilmi barasaabka gobolka Togdheer Xamse Maxamed Cabdi wasiirka dhalinyarada iyo ciyaaraha Boos Mire Maxamed iyo wasiirka deegaanka iyo horumarinta reer miyiga Marwo Shukri Xaaji Ismaaciil Baandare ayaa ka waramay muhiimadda uu garoonkan ugu fadhiyo horumarka dhalinyarada gobolka Togdheer mudane madaxweyne waxaan kugu mahad celinayaa sida sharafta iyo qiimaha iyo qaayaha leh ee qaranka Soomaaliland dhalinyarada aad gacanta u siisay ama hawl shaqo qaran haato ama ciyaartooyga qaranka Soomaaliland baahday lacagta gashay waa $300,000 23 bisha horyaalku wuxuu ka furmi doonaa magaalada leedahay Cergaabo 24 orodadii waa lagu qabanayaa 26 laascanood buu ka furmiyaa 27 orodada lagu qabanayaa magaalada ku xigaysa wax noqon doonta Burco madaxweynaha bay yimi Togdheer maanta way faraxsantay farxad maanta Togdheer way u dhamaatay farxadii ifka weeye madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland baa u yimi kii cadhoonayay iyo kii xanaaqsanaaba markuu aragiisi arkay ayay degay saasay u kala wada degtay wallahi way kala degtay aragaad ku bogsanaysa araga madaxweynaha ayaa lagu bogsanaya haduu tago imka aragaabo qof hadlaaya iyo qof isdhaqaajinaya midna ma jiro aragiisa ayaa lagu wada dhargaya oo lagu soo wada toosaya mudane madaxweyne maanta indhahaaga ku aragtaa garoonkii oo dhamaaday ballanqaadkaagii aad noo fulisay haddaan nahay reer Togdheer dhalinyaro iyo waayeel iyo maamulba waa kaaga mahadnaqaynaa runtii madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi ayaa dhalinyarada gobolkan ku dhaqan kula dardaarmay inay ka qayb qaataan horumarka dalkooda iyo sidii ay beesha caalamka u gaarsiin lahaayeen qadiyadda jiritaanka Soomaaliland garoonka la dhismay waa qurux badan yahay insha Allah horumar ciyaaro keeni doona ciyaaraha marka la ciyaaro maanta caalamka waxa magaca soo hooya waa ciyaartooy اعترافنا يكون عشان وداش سياسيين الدولة ولا عررايا يلا عندنا دوري الهرجريو ما يفرح أنت هرجريو قلق فيها هذا ما يقبل سوما ما يفرح أرض عايز يكون عررا بل كور هذين يلا طبعا أما إلا عشان يطبعا أو عيارتك بدأ عيار أو سماع لنا هذا وعلى قبل من البورد Muuse Biixi Cabdi madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa fariin u diray dhalinyarada ku dhaqan magaalada Burco iyo ta gobolka Togdheer dhaqanka imka aynu ku jirro ee xaafadda ina baabisa hadii kala ciyaartay noqon maysa meel la gaari maysa xaafad qula loo ciyaaraana de meel u gaari maayo hadii Burco ciyaartay aad ka atana meel gaari maysa Burco ka noqo qaranka Soomaaliland ka noqo geeska Afrika ka noqo isla caalamka ugu taas aad ka doonayna waxay noo balana inaad baabisaan xaafadda madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi oo garowsan kaalinta muhiimka ee ciidamadu kaga jiraan horumarka qaranka isla markaana dhiiri gelinaya ciidamada qalabka sida ayaa xadhiga ka jaray isbitaal loo bineeyay qaybta ciidanka Bilayska ee gobolka Togdheer oo la qalabeeyay taliyaha qaybta booliska ee gobolka Togdheer Cali Maxamuud Faarax ayaa ka warbixiyay xaaladda ammaan ee gobolka iyo hawlgallada ciidamada boolisku ay gobolkan ka fuliyaan halka kale waxa ka dhisan isbitaal bay ka hirgeliyeen niman booliska kala shaqeeya oo xalay warbixinteeda ku jirtay oo kamida booliska kamida oo saraakiil ah waa kufsiga iyo toorida muxuu xagga dilku uu fudud yahay imika oo hoos buu u dhacay sanadadan imika ku jirno iyo bilahan ku jirnaba laakiin waxa noogu daran waa kufsi wax la yiraahdo madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi oo dhiiri gelinaya ganacsiga gaarka loo leeyahay ee Soomaaliland oo dhismaha qarankan qayb weyn ka qaata ayaa xadhiga ka jaray dhismo cusub oo lagu soo kordhiyay hoteelka Kaafi ee magaalada Burco kaasoo ka qayb qaadan doona horumarka gobolkan ka socda madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa dhex lugeeyay wadada halbowlaha oo ah magaalada Burco ee gobolka Togdheer iyadoo bulshada magaalada ku dhaqana ay si weyn ugu riyaaqeen safarka madaxweynaha